السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مركز جوجتا وانيد السلامية وولاش فايسة عولا مانتا إدي ودا شيكو حرير مانتا إدي ودا شيكو وحندي هي عجيبة شيكو هذا هو شيكو حقيقة oo ku dhacday gabadh walaashina Facebook ku jirta marka intaana sheekada idii sheegin wallaahi haddii koob shaaha ama koob kafeeya la-aantii sheekada maba ku macaanaanaysaba la soo carar koobka shaaha ah ama kofiga haddaba sheekadan iga qabta sheeko cajiiba weeye sheekadu waxay ku bilaabaysaa gabadh iyo wiil soomaaliyeed oo facebooka isku baranaya gabadha waxay tiri wiilku wuxuu ahaa wiil qoraalkiisa maasha allah waxay tiri markaa aniguna qoraalkii markuu soo qoro markiiba like iyo maxay too share dee waxay tiri kaalay arag comment dheerna waan soo qori jiray waxay tiri isagana sidoo kale markaan qoraal soo qoro ama sawir soo dhigo waxay tiri yani maxay too maasha allah iyo maxay too like shareki de waxay tiri arrimahaasaan de beryo dhan waxay tiri saasaan kuwada sheekaysan jirnay waxay tiri gabadhaasi sheedan iska egan jirnay waxay tiri laba qofoo dee yaa isfahamsanoo de mataqaana gurub camal oo kale ah waxay tiri maalin maalmaha kamida buu inuu ku xigiri nada saaxiibay messengerka iga furo de waxaan rabaa inaan wax ku weydiiye waxay tiri messengerkii baa ka furay waxay tiri voice callkii baan shidanay waa sheekaysanay waxay tiri wiilku xigiri waa kaa helay maxay tiri gabar qurux badan baa tahay gabar kala xidhan baa tahay de waxay tiri waxaas igu shubay de waxay tiri aniguna waxaan arkay bahal inan oo dheero waxay tiri yaa waxay tiri de kaalay araga de anna waan ka helay bay tiri gabadha waxay tiri gabar single mother baaban ahaayo cirkaasaan mariyo de waxay jeclaaday wax maaragtay shukaansada waaban iska rabay bay tiri gabadha cajiib waaba iga yaabsay gabadhaasi waxay tiri gabadhii halkaasaa waxay tiri video callka iyo mataqaano whatsapp iyo waxay tiri waa shikisan jirnay waxay tiri maalin maalmaha kamida buu inankii voice call igu soo wacay isagoo oo waxay tiri oohin waxay tiri barooranaya heeq waxay tiri ilinta roob baad u malaysa waxay tiri roob camal war maxaad la ooyeysa war maxaa kugu dhacay waxay tiri waxaan u maleeyo geeri ku dhacday inanka war maxaa kugu dhacay kute adaan kuu ooyaya waan ku jeclaaday waan ku dhibanaya habeen ma seexdo maalin ma seexdo dee filmadaas waxay tiri inankii igu bilaabay de waxay tiri anigan waan ku yiri war de aniguba waartay waan ku ildaraan haye de laakiin de baroortan iyo oohintan iyo de naga daabay tiri naga daa oohinta sida kale aan u sheekaysana iga daa oohinta horta bay tiri oohinta lama tusaanige waxay tiri waa ka yiri oohin ma kaa joojinayo naya mabeen ma seexda maalin ma seexda wuxuu yiri de waaba ii dhamaatay buu yiri waa inaad maxay heeto aan isguursanaa ood i guursataa haddii kalena waan isgubayaa ku ta inankii yaa waxay tiri inta waan yaabay maxaa tiri waan isgubayaa adiga dartaa waan ku jecelahay ama haddii kale aan isguursano oo meesha joogta iigu kaalay haddii kale waan isgubaya dartaa baan isugubaya waxay tiri inta waa aniga naxay waa aniga yaabay war waa maxaad isu gubaysaa war maad waalan tahay maya haddaad ijeceshahay oo dee ijeceshahayna waan isguursanaynaa oo kaale i guurso haddii kale aanad jecleena dee waan iskubaya anigu noloshan la-aanta maba noolaan karaba marka waa adigay kuu taallaa ama aan isguursano ama haddii kale waan iskubaya waxay ti gabadhi waan naxay waan yaabay waan fadhiistay waan istaagay war haddaba dhegeyso bay tiri waan ku idhankii waa dhegeyso war waan ku guursanayaaye war waan ku guursanayaa bilis ha iskubin war waan ku guursanayaaye ha iskubin de wuxuu igu yiri de waayahay haddabaad i guursanaysid isma gubaya laakiin haddaad i guursan weydid waan isgubaya haddaba la soco dembigaygana dee adigu qoorta kuu sulan yahay waxay tiri waa aniga ku yiri war waama ku imanayaaye waryaahe war hindiya waa meel foge hindiyuna markaa deganya bay ku leedahay waxay tiri war hindi waa meel foge ilmo yarna waan haystaaye bal haddaba aan wax soo dee aan diyaariyo waxay tiri hooyadii baan u tegay waxay tiri hooyadii baan u sheegay waxaan ku yidhi hooyan dee nin baan soo guursanayaaye dee uma sheegano dee filmada Facebook xogtan waxaan ku inaan nasbaranayo hindiya ku noolo jaamacad dhigto dee waxay tiri been baaban islaanta u dhisay bay tiri
waxay tiri waa aniga inan yar baan lahaay waxay tiri inantaydii yareedna waxay tiri hooyo farta ka saaray waxay tiri tigir waa aniga goostay waxay tiri lacagtaydii bangiga ku jirtayna waxay tiri waxoogaa kala soo baxay waa aniga waxay tiri diyaarad wuu yaa waxay tiri gabadhii ilaayo yaa hindiya waa aniga tegi waxay tiri magaaladii uu joogay markaan sidaa u tegay airportkii buu igu yimi waxay tiri airportkii markuu igu arkay waa ka isku kay duubay way tiri waxaa haddana halkii ka bilaabay baroortii iyo oohintii heeq waxay tiri oohin oo roob camal roob ilinta ka da-aysa waxay tiri sidii roob camal abay u daadaadanaysaaba waxay tiri waa aniga markii dambe waxay tiri calaa kulli xaal tagnay hotel khataraan kareysanay bay tiri dee waa aniga ninkii nikaxsaday bay tiri gabadhi halkaasaa waxay tiri yaha aroos iyo hanimuuniyo dee adduuniyo salla calee waxay tiri halkaasaa dee ku baashaan lama tiri anigayo dee maxay tiri caruuskaygii sheekadii sidaa markay ahayd waxay tiri 2 wiig baan soo joogay waa aniga kusoo noqday bay tiri magaaladii aan deganaa waxay tiri markaan saa usoo noqday aan habeen joogay waa kay soo wacay waa kay guri naya Facebook cancel waanad ka dhigtaa delete facebookkaaga completely waana delete garaysaa walaalo maxaa dhacay maya aniga waxa weyn ma arki karo facebookada ku jira inuu nin kale ku daawado ma rabo waa inaad ka baxdaa anigana waan ka baxaya adiguna waa inaad ka baxdaa warigada facebooka waxa weyn dee asxaabi may waa inaad ka baxdaa aniguna waan ka baxaya haddii kalena dee wuxuu yiri maxay to anigu dee waan maseer badan oo nin kulul baan ahayo dee waa inaad ka baxdaa dee waxay tiri waaniga facebookaygii waxay tiri completely delete ku sameeyey isagana waxay gu yiri dee aniguna kaygina delete baan ku sameeyey waayahay baan ku iri waxay tiri halkaasaan darahayga iska qabtadayoo waxay tiri visa baan u raadinaya ninkii oo waxay tiri lawyer baan u qabtayoo dee waxaan haba naag dhan u rabtay ninkeeda inay keento gabadhi waxay tiri sheekadu sidaa u ahayd waxay tiri maalmaha ka mid a habliyaan asxaabta facebooka ku ahayn oo waxay tiri dabar hore igu dambeysay waaba tay soo wacday igu tiri telefoonkayga caadiga naaxagaad ka dhacday maxaa dhacay facebook ma jirtide dee waxaan ku inaa facebookii waan ka baxayo dee waa lay guursadayoo odayayguna waa oday kulul dee wuxuu gu yiri facebook uma arki karo markaa waan ka baxay facebook dee waan iskaga baxay na haddaba waxay igu tiri gabadhii markaa inantii kale u sheekeynaysaa sheekan ku haya haddaba aniguna facebook baa ninka soo bartay nin kala xiran oo kaale araga baan soo bartay laakiin walaali dhibaato ay haysataa waxaan ku yidhi way tiri gabadhii maxay tiri dhibaatada ku haysataa waxay tiri walaale ninkan uu ooyaya habeenii maalin uu ooyaya markuu xanaaqana waxaa gulley waan iskubayaa waxay tiri inantii sheekadii waxay noqotay sheeko aan yani fahmi waayey inantii waxaan ku walaalay saaxiibey ninkan kule uu iskubayaa oo a facebooka ka baratay sawir ma ka haysaa balan eege waxay tiri inantii wayga yaabta walaal maxaad ka rabtaa sawirka maya walaal saaxiibey bal siduu eegyahay tus waxaan rabaa dee inaan arko siduu eegyahay inaan ku yahay inuu dee maxay hayto qof xanuunsan yahayo inuu qof caadi yahayo waxay tiri waxay igu tiri inantu dee telefoonkaygaaba igu jiraaba waxay tiri iphonekaagaba igu jiraaba waxay tiri saa markaan u furay dee inantii telefoonkeeda waxay tiri kii aniga kusoo guursaday hindiyaaba meesha kasoo baxayba waxay tiri mar keliya bal dhulka saa ugu dhacay inantii waxay tiri saaxiibadii na maxaa kugu dhacay waxay tiri gabadhi waxaan ku naa walaale macaane naa ninkan waa ninkii anigu aan hindiya kusoo guursaday waxay tiri inantii waa yaabtay nawalaal maxaad leedahay nawalaal maxaa kaa khaldan wallaahi bilaahi talla waa isagii laftigiisii weeyaan weliba biyana isku shubin na waa ninkan kusoo guursaday hindiya weeyaan waxay tiri inantii waa yaabtay anigi waa yaabay waxay tiri waata inantii tiri haddaba hadday sidaa tahay maxay heeto walaal naga hubi inanka bilaayo qof u egyahay waaniga ku yiri bal imikaad waxaas mise voice call ku waco ana sheeda halkaa shishaan fadhiisanayaa codka keliya bal ii shid codka oo waxaad ka dhigta loud dheere codka anuu codkiisa dhigisay inuu isaga yahay in kale markaasaan xaqiijin doono ilaa wejigiisa waan u jeedaay wala arrin yaab weeye arrin cajiiba weeyaan waxay tii inantii wata voice callkii inantii dee inankii maaragtay kula hadashay waxay tii hallow markuu yiri ya waxay tii isla markiiba codkiisii baan gartay waxay tiri waan gartay inuu codkiisi yahay inantiina waan u sheegay waxaan ku yiri naa dhegeyso farahan sidaa yani uu sheegay bay tiri gacmaha
waxay tii inanti waata voice callka ku tiri war maxay ta balana hadha kusoo wici doonee dee waa ku kaa waata inankii dimac salaamisay waxay tiri anigoo waxay tiri madaxu saa ii wareegay oo dhulkii ila wareegay waxay ku leeday yaaban waata inantii igu tilmaamay isagiiba waa aniga ku yidhaha walaalay kitaab jaamacan kuu maraya waa isagii weeya waa ninkan hindiya kusoo guursaday marka ninkan wuu ikhiyaamay waxay tii marka waan qeylinayaa waan ooyaya waxay tii inantii waata yaabtay waata inankii ugu tiri dee haddaba hadday sidaa tahay saaxiibey dee marka maxaad qabanaysaa ilaa ninkan waxa weeyaan adigana been buu kuu sheegay anna been buu ii sheegay aniguna waxaan soo istaago nahaya ahe adigu haddaad doonti guurso anigu waa in waraaqdaydu ninkan isiiya dee waa inay Facebook cusub soo samaystaa oo maxayta u gabadaa oo dee aan runta u sheegaan yidhahda war waan kusoo ogaaday oon yidhahda haddii kalena waan ku xidhaya oo ilaa hindiya safaaraddii soomaaliyeed iyo askar iyo de waxay tii waa inaan ninka dee aan ku qayliyaa bay tiri waxay tii aniga Facebook beenaa soo samaystay waxay tiri sawir beenana saartayo aad u sameeyay ninkiiyo waxay tiri ilaa waa nin waxay tiri naagaha sidaa u shakaansanaya waxay tiri isla markiiba accept buu isaguna isiiyey dee waa aniga waxay tiri markii dambe kuri war voice call iga qabo oo dee isagoo in lama ogeyn aniga ahay naag kalu ii malaynayaa waa ka voice callkii waxay tiri iga qabtay dee mise waa wejigaygiiba kasoo baxay ee isagii dee sidaasaa waxay tiri indhihii oo isna wii arkayna waan arkay dee waa aniga kuri war allaha lama yahay deynat waxay tiri waxaan kuri war ilaahay ka baq waar ilaahay ka baq waad khiyaamaysay dee waxay tiri halkiiba waxay tiri cay ha sheegin waxay tiri qeelo ha sheegin oohin ha sheegin maxkamad baan ku saaraya ha sheegin dee waa garanaysaa bay tiri naagdee maxay hayto dee dhibaato ku dhacday waa ka waxay tiri ninkii ooyi jiray barooran jiray waxay tiri oran jiray waan isku kaa dilaya waa kay buri naya naa furitaan baad sheegtaye maba ku rababa waxaan kugu falay ma jirto markii horena maxay hayto dee maxaa naag soomaaliyeed baad heedee maxaad markaa garoba faa'iido lahayd naa waa ku furay baad tiri maahane meesha doontid ka dhac unbay wiiba tiniki yaab waxay tiri naxdin aniga ka dhamay waxay tiri anigoo rababa inuu ifuro oo waxay tiri ninkii baan ka qancay haddana waxay tiri sida fudud oo ka muuqatay inaanu dan iyo muraad toona iga lahayn waxay tiri baan ka yaabay weliba waxay tiri ninkaas lawyer baan u qabtay waxaan rabay inaan soo kaxeeyo waxay tiri nasiib wanaag beentiisii waxaan ogaaday intaanan maaragtay dee anfiisay waxba toona aanan u sameyno kharash aanan mataqaana ninkaas gelin marka inantii wallaahi waxay tiri sidii baan maxay tiri ninka ku kala tagnay waxay tiri Facebookiina waxay tiri waan bedelay mid kalaan samaystay oo saddexaad baan samaystay isagiina waxay tiri dee dib dambe waxay tiri meel u taagan yahay waxay tiri magac kaluu wataa ma wax kaluu wataa ma kuwa meesha igu jiro hadduu doono mid ka mida yahay waxay tiri isaguna magac cusub iyo ma inuu samaystay waxay tiri dib dambe horta isagoo meel muuqaalkiisa markaas ay ugu dambeysay iyo Facebookiisii wixiisii marka gabadhaasa sheekadan ii sheegtay asxaabe waa sheeko runtii aniga iga yaabisay waxaa laga barto asxaabe waxaa laga barto marka dumarow isilaaliya marka rabtaa inaan guursataan waad guursan kartaa nin kaa fog nin dal kala degan waan aragnay dad badan oo isguursaday oo maaragtay isku dal aan maxay ta deganin laakiin qofka waa inaad si fiican yacni ogaataa qofku wuxuu yahay wuxuu haan jiray inuu qof wanaagsan yahay laakiin waxa weeye nin baad baranaysaa tigir baad goosanaysa horaad yacni ka duulaysa adoon aqoon iska ilaaliya baan dhihi lahaa walahi arrin aada iga yaabsay gabadhii waxa weye damage weyn baa runtii gaadhay marka aad baan idin salaamay asxaabe